subuskaray kasaro kambalel kafura oo laygana ku daba qabo lacagka ma joogay asxaabta gaarsi waxaan adi wax ku dhimin anigana waxi tara ha igala baqayline barta kulan ka gaarsi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة شرفت كله سود وادا channel كأنك داونيسين وسجل عبدي وحكى لنا قبله يريرا بس دعوودي وحي كسر دعوودن وضياشي وحي نقدين وحلا ليابي وقبله يريركا نفط أوكياني قبل كسر نكوب هذا مين قبلها يفرضلشada doorkooda iska marahayo oo maaragtay ayagu xorka ah ninkay rabaan iyo dooqay rabaan aadaya lagama hadlaayo waxa laga hadlayaa gabadha sharaf kale oo gurigooda joogta oo wax barata oo qiimaha leh oo waalidkeeda wax ka maqasha oo maaragtay sakuuda iyo akhlaaqda leh ayaa laga hadlayaa gabadhaas ayada ah caasinimo ma rabto waalidkeena inay inkaar iyo habaar ka galabsato ma rabto waalidkeedu wuxuu u soo jeediyo bay qaadataa haddana waalidkii dooqeedii ma tixgelinayo balaayo boorso weyn walwaalayso oo gowsa gaalla ah oo guxuushaa ah uu madaxa u saaraya oo leeyahay aabe habaar iyo duca mid qaado markaasay leedahay aabe ducaan qaad gabadha dooqeedii ma ahan maaragtay ninkaa fiyi kara ma ahan waa oday guxuushaa ah marka aad ba gabadhaas godob looga galay marka gabadhii waa cabanaysaa da waxa weeye waa cabanaysaa gurigeedii markay tagto kuban qanacsana wixii baa loo soo duuduubaya taash loo soo galinaya lacag caqliya adoogi lagu tuuraya waxaasuna wax qiimo la maahan gabadhii marka waa hadlaysaa waa cabanaysaa geeraar yar bay ku tuuranaysaa waxay leedahay geeyo ugub ayaanahay guudkeedu daban yahay garaarkayga lama furin gacantayda lama qaban weli guri nin leeyahay uma gali sirgooniya haasaawo guudiyo ma gorfayni sheeko gabarnimaan ilaalshaa haddana gaban yar baanahay gawsa weyne oday iyo guxuushaa in lay dhiso ma gar baanu leeyahay haddana gabar yar baanahay gelin dhexe allaylkii iskaadgaadka sheekada gununuc baan ku seexdaa haddana gabar yar baanahay guxuushaa in lay dhiso ma gar baanu leeyahay. gabdhaha Soomaaliyeed maanta inta godob baa laga galay suxun baa loo galay waa la bahdilay dhaxalka lama siiyo oo waxa la dhahaa waa naaga iska daayay intii ragaha qaybsata shaqooyinka lama siiyo oo waxa la yiraahdaa waa naaga maxay barata wax loo ogoliya shaqada dawladda haday timaado waxa la leeyahay 80% kaliya ka qadiyay waa yaabe war sida loo dhaamo gabdhaha war gabdhaha waa dulmay war gabadhii waa dhalaysa uurkay ku wada araxday ku wada ayadiyo uu gacantiina daadahaynaysa dhabarkiina ku wada calooshiina ku wada leeyahay waa lagu furay meelay aaday male wax siinaya male waxay u riman tahay lama arko inkaar baa dhacday qurbaha hadii la taga ayadii baa ilmihii jiidaysa oo maxay ilmihii mataqaana daadahaynaysa oo wax walba wada dalka hadii la joogo ayadii baa miiskii kor fadhida sandaqadii ayadii baa kor fadhida baqaarka ayadii baa kor fadhida ayadii baa dhuxushii gadaysa ayadii baa ilmihii hooyay leeyihiin cunuga hadduu xanuunsado odagii danka ma leh isbitaal ma geynahayo wax rajaa oo kale yahay lama arko cunuga hadduu soo roonaado aabe anaa dhalay ma ogtahay buu leeyahay waxaasuna wax qurux badan maahan nimankii cabashaan ka taaganahay nimankii waa laga cabtay gabdhaha yaryarka ah oo nimankii reer baadiyaha ah oo inta sponsorka lagu dhoofiyay boorsada lacagta iyo beeshinka kala imaanaya dibadda oo gabdhaha yararka la siinayo ha laga daayo arrintaas arrin fiican maahan waa laga digay bal waxa aad arkaysiin oo meesha hadda idinka muuqan doono oo wada duuduuban oo daanka abeesada leh oo ilmaha yarka 15 jirka ah faantada ku habahaya bal fiiriye waxaasoo kale wax qurux badan maahan gabdhihiina dambi baa laga galay waa la xumeeyay wax xaal marinayana lama arko gabdhihii Soomaaliyeed sharafta laga qaaday mid baa la qaadanaya waxa la geenayaa Amsom waxa loo geenayaa xalana la geenayaa adoomay baa isku buurlaabaysa iyo amxaaro wixii loo garto waxa dibadda tii tagta waxa weeye mar allaaliyo markaasaas caruurtii dibadii ula tagta iyadoo meelba ka kalmaysan buu aayar ama qayilaad aadahaya ama qamra aadahaya ama duurkiisa galahaya oo iskala bixinahaya oo leeyahay maxaa iga galay
markaasay wixii la hambalaq leedahay. waa dayacanahay dumar haddaan nahay waa dayacanahay, sheekadaana nama anfacayso, ha laga hadlo arrintan, ha laga hadlo arrintan, ha laga soo jeesto. gabdhihii waa xumaadeen, gabdhihii waa la xumeeyey, gabdhihii sharafta laga qaaday, gabdhihii karaamada laga qaaday, gabdhihii ilmihii baa lagu sii daayay, gabdhihii reerkii baa lagu dayacay, gabdhihii ilmihii baa lagu furay, gabdhihii ilmihii baa lagu ceyrshay. gabdhihii sidaan ma anfacayso, sidaan ma anfacayso. gabdhahaasaan ha laga daayo. ragow arrintu idinka idinku foorartaa, arrintu idinku idinku foorartaa ee gabdhaha Soomaaliyeed far ha loo celiyo. gabdhihii waa cawdeen. wartii ilma xambaartaa waa gabdhihii, tii dhashaa waa gabdhihii, tii nuujisaa waa gabdhihii, tii wuxu karisaa waa gabdhihii, tii wax bartaa waa gabdhihii, tii daadahaysaa waa gabdhihii, tii af bartaa waa gabdhihii. war odayaashii meeye, war raggii meeye, war dadka war dhaliishaan maanta tataala arka. war gabdhihii Soomaaliyeed waa dayacan yihiin oo adduunkii dibaddana waa ku dayacan yihiin, dalkiina waa ku dayacan yihiin. war hal la arko mid ilma lagu inkiro oo la rimiyo oo cidlo lagu buurlaabo, mid amxaara loo geeyo, mid gaal meel fadhiya la yiraahdo iga iibso, mid shaqadeeda inta la yiraahdo waad shaqaynaysaa ee kaale la qabsado, mid inta loo yeerto dabaq laga soo tuuro, mid inta loo yeerto mara lagu ceejiyo, mid kaliyaha lagala baxo. war inkaar baa ka dhacday gabdhihii Soomaaliyeed, inkaar baa maanta ta haysata. noloshii inay isku gubaan, meel kasto ay joogaan nolosha inay isku gubaan baa maanta laga baqayaa. gabdhaha Soomaaliyeed ha loo eexdo. ragow gabdhaha u eexda. war gabdhihii way idin dhaleen, war gabdhihii waa idin dhexeen, war gabdhihii waa idin la dhasheen. war gabdhaha sida xun oo foosha xun oo aad ula dhaqanaysaan dal iyo dibadba haddaad joogtiin ha laga daayo. aniga sheekadan kama harahayo ilaa fiinaa weyta. gabdhahaasaan daba taagnaanaya, xuquuqda gabdhahaan u doonaya. midda kale gabdhihii waxaa leeyahay war gabdhihii waa u doodaysin, waxay ka doodayaan nimankii waxa la yiraahdo gudniinka fircooniga, gudniinka fircooniga. war gabdhaha maa loo doodo, war gabdhaha xaqooda maa loo doodo, war gabdhaha xuquuqdooda maa loo doodo. war hadday shaqo tahay ha loogu doodo, oo hadday aqal dhis tahay ha loogu doodo, oo hadday guur tahay ha loo doodo, oo hadday ilaahay kuma daraadee xanuunsan yihiin ha loo doodo, oo hadday shaqo rabaan ha loo doodo. war gabdhaha gacanta ha la saaro. war gabdhaha Soomaaliyeed ragow waa dayacan yihiin. waxaad 30 sano oo burburka Soomaaliya ka jiray aad ku soo moodeena maanta waa gabdhaha Soomaaliyeed. gabdhihii Soomaaliyeed ragow ma haysaan, isma haysaan. gabdhaheena heer waxay taagan yihiin maanta cadaanka ay u galaan, oo afrikaankii murmuriga ahaa ay u galaan, oo adduunka ay u firxadaan, oo jareer iyo jilaac aysan u kala soocnayn afrikaan iyo Soomaali iyo cadaan iyo madow midna aysan u kala soocnayn. ragow waxaas idinkaa kalifahaya, arrintaasna idinkaa keenay, gabdhihiina idinkaa xumeeyey. gabdhihii ha la xaal mariyo, gabdhihii ha la sharfo. gabdhaha Soomaaliyeed tii media laga waanin karaa ha laga waaniyo, tii media looga mahadnaqi karaa ha looga mahadnaqo, tii gacanta lagu dhigo oo mataqaanaa loo naxariisan karaa ha loo naxariisto. gabdhaha Soomaaliyeed ragow maanta gabdhaha Soomaaliyeed waa idinka eed sheegteen sida u dhaama. oo ilaah baan idinku dhaariyo odayaasha gawsa gaalaha ah oo guxuushaaga ah oo ciroobay oo maxay tahay laftooda dhuux hadii laga raadiyo eber ay tahay oo 15 jirka loo guurinayo ha laga daayo 15 jirka. odayga 70 jirka alla siinayo wax macnaa uma tarahayo, wax daran buu ka dhalahayaa. way iyadoo dhan way baaba'aysaa, niyada baaba'aysa, qalbiga dhimanaya, maskaxda rogmanaysa, iyadoo dhan waxay u dhimanaysaa dismoral bay noqonaysaa, moral ahaan bay u dhamaanaysaa. taasa laga daayo. naag walba ninkii anfacaya oo la-eg ha guursato. ninka odayga ah oo naag ku la-eg guurso. 70 jir haddaad tahay naag 60 jir ha ku la-eg guurso, 10 sanaad ka weyn tahay. 50 jir haddaad tahayna 25 jir guurso, waa ku dhaqi kartaa walow aad si fiican uga sii weyn tahay. waxa weeye gabdhaha kuu soo haray. war gabdhayahow wiilasha yaryarka oo dhalinyarada oo xubeerada ah oo Soomaaliyeed, war lacag ha ku xirinina, oo dahab ha ku xirinina, oo diinaar kale ha ku xirinina. naagti calaf u galo oo dooqeeda ninkay ka hesho ha guursato. aqal qurux badan iyo dahab iyo adduun midna ku raaci maayo. inta adduunku waaba saban aakhir waaba iska gabagabay waxa la waarimaysada wax ka hareen korkaaga in ilaahay wax kaaga soo gooyo. irsaaqada ilaahay baa bixiya. gabdhayo isku daya, wiilashana ha dayicinina, guurkana qaali ha ka dhiginina, oo guurka qaali ha ka dhiginina,
guurka ha ka dhiginina wax qaali oo aan la geli karinin oo dahab doon ah oo guri sare doon ah oo maxay tahay lacag iyo diinaar doon ah ha ka dhiginina gabdhayow iibka iska daaya haddii kale wallaahi ragga aad raadinaysaan waxaa idin kala baxday oo maanta inta balaga iyo calanka u lulaysa 70 jir taageer inta xiratay adduunka beeshan ka soo qaadatay oo meeshay doontaba ka degta oo meeshay doonto u duusha oo hawaday doonto dabaalata saxaraadis ah baa wallaahi 20 jirkiisa u dafaysa inayna helaynin 20 jirkaas babisna waa ku seexinaysaa dhunkashana waa ku kicinaysaa madax carfoon baa la yiraahdaa hadday idin gacanta idin ka dhigtana waliinaan arkayn ma dib dambe asaguna waa hawo beelahayaayo nin babisna lagu seexiyo dhunkashana lagu kiciyo hadda waxa weeye reer dhaqan mahayo asna waa karaama seeg baa ku dhacay gabadhii yaraydna waa qarni guurto nin fiican ma aysa helinin sida ha laysu dhaamo war sida ha laysu dhaamo war aniga arrintan aniga arrin baa iiga baxaysa arrinta iiga baxaysa waxa weeye waa odayaashii gabdhihii la wareega yaryarka ahaa waa wiilashii yaryaraayo habrihii la wareegaan oo dollar ah oo dollarka jiidahaya arrinta iiga baxaysa waxa weeye wiilasha qaarkoodna cidlay kusoo dhacahayaan wiilasha naagta habarta ah wiilkay guursato shaqaysan mahayo afka wax loogu guraa wixii naa habartu bartay buu rabaa saasuu ku dhir iyo dhaqan seegay reerna ma dhaqan karo ju hadday naagta u tiraahdo ama bil si tiraahdo naabax buu leeyahay habar buu doonayaa saas u galaw leeyahay waxa kuu soo haray gabadha odaygu guursaday wiilow hadda waxaad guursatan ma yaalaan meeshaan gabar la iibsaday oo dismoraal naqatayna hadhowdii waxa weeye haddee waxay kiilohoy galaysaba lama arko arrintan farha loo celiyo gabdhuhuna guurka ha raqiisiyeen wiilashuna habraha ay daba ordayaan ha iska daayeen odayaashuna 60 ba hadduu gaaro waxaaba fiican inuu sawjadiisii hore isaga aakhireysto oo iskaga meel gaaro oo tii ilaahay ugu agtimaado oo hadduu laba qabay labadiisi iska haysto oo hadduu saddex qabay saddexdiisi iska ag joogo oo hadduu hal qabay halkiisi iska joogo war sida halaysu dhaamo war sidaan ma anfacayso Soomaaliyay guurkan qaybo beelay oo odagu ka adeegto habartu ka adeegatay wiilkii yarka ahaana dhumay gabadhii yaraydna waa dhuntay wiilkii yarka waa dhumay oo madax carfoon baa qaadatay gabadhii yaraydna waa dhuntay oo oday boorso weyn oo gowsa gaalaha jiidaya war sidaas macquul ma noqonayso guurkii waa dhumay sidaa loo dhaamo arrintan farba u laaban arrintan anigu waa mana deynaya maalin ilaahay keena waa ka hadlaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh